الحوق لو كتر تنجيلا كودني حرينتا وغادينيا ayaa habeennimadii 7 bishan waxa ay weerar cilmiyaysan ku qaadeen saddex xero saldhig oo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ku lahaayeen magaalada Qabridahar ee xarunta gobolka Qorraxay saldhigyadan oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya amsaxa ka dhigay ayaa ahaa taliska guud ee laga xukumo wayaanaha Ogaadeniya jooga iyo goobo kale oo iyana gumaysiga muhiim u ahaa haddaba arrimaha la xiriira dagaalkaasi iyo khasaaraha ciidamada gumaysiga Itoobiya loo geystay iyo waliba guulaha iyo talaabashaha ciidanka xoreynta Ogaadeniya waxa inoo haya wariya Cabdiraxmaan Sheekh Faarax oo u galay sidaad warkaba ku maqlayseen dagaal soconayay 9 fiidnimo ilaa iyo saqbarka habeenkii oo fiiyay cul xoog leh oo ka tirsan ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa 27kii bishani Juulaay oo daraata ku beegnayd waxa lagu qaaday fariisimada ay wayaanuhu ka gumaystaan Ogaadeniya oo Qabridahar ku yaala weerarkan lixaad kale oo ay qaadeen cutubyo ka tirsan ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxa lagu burburiyay 3 xero oo kamid yahay kifladoorka taliska wayaanaha ee Qabridahar fadhiya kaasi oo ku yaala bartamaha magaalada halka labada fariisin ee kalena ay ku kala yaalaan galbeedka iyo koonfur galbeed ee magaalada Qabridahar weerarkaasi wayaanaha lagu baacsaday ayaa waxa lagu burburiyay dhismayaal baqaaro hub gaadiid iyo goobo kale oo aanu cadawgu ka soo kaban kareynin sidoo kalena waxa yana jira tiro aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta sida wareer xorriyo u sheegay hogaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya Sheekh Deeq Maxamed dagaalkan ayaa waxa uu kamid ahaa duqeymihii caadiga ah ee wayaanaha lagu hayay kaasi oo dhanka kalena hogaanku ku sheegay inuu kamid yahay jawaabaha kulul ee gacanka hadalka ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ugu jawaabayso dacayadaha laciifka ee wayaanuhu ku jahawareerinayo dadka Ogaadeniya haddaba mar aan khadka taleefanka kula hadalay Sheekh Deeq Maxamed oo hogaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo isagu hogaaminaya dirirta kulul ee dhexmaraysa ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya askarta wayaanaha ayaa waxaan wax ka weydiinay bal inuu wax nooga sheego duulaankaasi oo galay ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ku qaadeen saldhigyada uu gumaysiga Itoobiya uga taliyo ciidamadiisa Ogaadeniya ka jooga ee ku yaala Qabridahar dagaalkan adigu dagaaladii dhixii inuu kamid ahaa oo wadanka Ogaadeniya ka socda dagaaladuna waa iska joogto laakiin kan dhacay wuxuu ahaa mid qorshaysan oo 3 goobood oo magaalada Qabridahar kamid ahaa la weeraray xerada kifladoorka iyo 2 goobood oo kale oo bartilmaameed ahaa oo cadawga dhulku dadka ku rafaadiyay ee ku xirahayay ku kadeegay waliba iskood iyo madaxdoodu ay fariistaan qorshaha ciidamadeena waxay yihiin inay maaragtay dhulka Ogaadeniya ay ka sifeeyaan gumaysiga wayaanaha intay arrintaasi socotana hadba cidka dagaalqabaha shacabka iyo ummadda baabiyay inay gacanta ay ku qabtaan marka dagaalkani dagaaladii lamid ahana wuu ahaa saasuu dhacay muddo wuxuu bilowday 3 saac oo fiidka si habaysan oo qorshaysan buuna dagaalkaasi u dhacay waxaana filaynaa cadawga khasaare una ka soo kabanaynin in la gaarsiiyay dhanka kale waxaa iyadana jirta bariyahan inaad maqlayseen dad magaca jabhadda wado oo xagga lagu soo sheegayo Ogaadeniya inay yimaadeen iyo qoladii kale ee al-Ittixaad dhammaantoodba dadka iyaga waa wax ay wayaanuhu ay samaysteen isla markaana ugu talagaleen saxaafadda inay maqashiyaan dhulka Ogaadeniya waa dhul gumaysi haysto marka laba arrimood baa ka jirta oo gumaysi raac iyo gumaysi diid shacab duuman oo shacabka Ogaadeniya isla markaana gumaysiga diidan jabhadooyina hormuud ay u tahay oo gobonnimo doona gumaysi diid baa la yiraahdaa wayaanaha iyo dabadilifkiisana waa gumaysi kuwa haddana noocan ee cadawga isu dhiibahaya iyo wax yaroo jigjiga jooga oo isbiirsadayna iyagana gumaysi raac baa loo yaqaanaa ciidanka ilaahayna dhulka Ogaadeniya sida ugu habboon ayuu xorobiyaa ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxay diyaar u yihiin inay dhulkooda gumaysiga abaasiin iyo goordhow ka kaxeeyaan intaa waxaa socota tababaradii ciidamada waxaa la barayaa ciidamada cusub ee hadda kusoo biiraya dhaqdhaqaaqa gobonnimo doonka qaabka dagaalka wacyiga maaragtay ciidan ee jabhadda si ay loo wada fahmo hadafka iyo targetka la tooganayo marka sidaasuu ciidanku u midaysan yahay hadallada maalmahan ka soo yeedhaya Qabridahar iyo Jigjigana waa wax maaragtay gumaysiga rigadiisa iyo qarowgiisa kamid ah aad iyo aadna waan idin salaamaya mahadsanid
kaasi waxa uu ahaa naftii hore Sheekh Deeq Maxamed Maxamed hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka Ogaadeniya kulan weynihiisa nadlaha ahaa ee jaaliyadaha Ogaadeniya oo intii muddo ahba tabaabushihiisa lagu jiray ayaa saakayto waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden arrin kala dhexbaxa warbixintii shirkaasi iyo wariye Cabdinuur Sheekh Maxamed shirweynihii 15aad ee jaaliyadaha Ogaadeniya ayaa saaka 9kii subaxnimo si rasmi ah uga furmay xarunta waddanka Sweden magaalada Stockholm shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud aad u badan oo ka kala socotay jaaliyadaha Ogaadeniya ee qaaradaha adduunka marti sharaf isugu jira aqoon-yahano siyaasiyiin ajaanib u badan wariyaal qorayaal iyo waliba fanaaniin shirka si rasmi ah loogu marti qaaday waxaana xusid mudan in ay shirkan ka soo qayb galeen wufuud ka kala socotay qaaradaha Amerika Australia iyo Afrika oo shirkan uga yimid meel aad u fog dhanka madaxda ururka ONLF ee shirkan ay ka soo qayb gashay saaka ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan gudoomiyaha hoggaanka arrimaha dibadda ee ururka ONLF mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi gudoomiyaha arrimaha ururka ONLF mudane Maxamed Cabdi Yaasin Diirane iyo gudoomiyaha hoggaanka hanti dhowrka ee ururka ONLF Dr. Maxamed Macalin iyo xildhibaan aad u badan gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo gudoomiyaha jaaliyadda Sweden Ugaas Carab Geele ayaa saaka shirka si rasmi ah u wada furay heesta calanka kadib oo iyada shirka lagu furay bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in dhammaan dadweynaha meesha ka soo qayb galay ee bulshada Soomaalida Ogaadeniya dadka kale ee ina soo booqday ee ajnabiyaasha Soomaalida dhammaantiinba soo dhawaada waan idin salaamay anoo ku hadlahaya afka jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya Sweden iyo dhammaan jaaliyadaha adduunka Yurub Amerika dunida dacaladeeda dhammaan meeshan fadhiya Soomaali weyn anagoo afka Soomaali jaaliyadaha ku hadlayna Soomaali weyn soo dhawaada dhammaantiin waxaynu maanta halkan aynu isugu nimid oo guul weyn inoo ah shirkeennii caadada ahaa ee sanadeedka ahaa oo la casriyeeyay maanta oo aad garan kartaan hadba sanad walbaba sidii aynu horumarka u gaadhnay halkana ay ka muuqato dhammaanna ay ku idil yihiin jaaliyadihii Soomaalida Ogaadeniya ay ku idil yihiin dhammaan waxaanu leenahay waxaan meeshan aan maanta ku hayno waxa weeyaan waa bulshadeena iyo halganka inaynu u adeegno waxa kaloo inoo jooga oo aynu nasiib u helay oo ku martiqaadnay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa maanta inala jooga insha Allah waxaanu ku soo dhaweynaynaa in uu khudbad qiimo leh oo wadankii iyo maaragtay xaalad arrin kooban inuu inooga sheego ku soo dhawow gudoomiye Ogaadeniya xorowdo Ogaadeniya xorowdo Ogaadeniya xorowdo shirkan ilaahay ha inooga dhigo mid khayr qaba guulo iyo go'aano aynu halgankeena ku meel marino gumaysigan aynu kaga dhigay ilaahay inooga soo saaro maanta oo bishu 30 tahay sidii caadada inoo ahaan jirtay ee sanadkii walba aynu marisu iman jiray inagoo ka tashanayna halgankeena iyo siduu u socdo guusha aynu higsanayna mar walba qorsheynayna sidii caadada inoo ahaan jirtay shirkii shirkamadeedkii jaaliyadaha waa inoo furan yahay waxay baan inoogu furahayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu mid guul iyo midho fiican dhala inuu inoo noqdo khudbadaydana gadaal baan insha Allah ka akhri doona haddii alla yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh